aqooyahan Cabdisalaan Maxamed Xaaji Buraale oo kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa shaaciyay inuu u tartamayo doorashada golaha deegaanka magaalada Burco. Murashax aqooyahan Cabdisalaan Maxamed Xaaji Buraale oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in Burco u baahan tahay isbedel dhaliyo horumar isla markaasna lagu taageero dhalinyarada wax baratay inay chance u helaan inay bulshadooda wax u qabtaan. Waxaana ka waramay waxyaabaha ku kalifay inuu isku sharaxo golaha deegaanka degmada Burco. waxaan ahay musharax u taagan doorashada golaha deegaanka ee magaalada Burco insha Allah dhici doonto dhawaan hadii Allah ka dhigo waxyaalaha igu kalifay inaan isu soo taagan jagadan waxa weeyaan muddo badan oo imika ilaa 6 sano ka badan ayaan waxaan ku soo noqonay magaalada Burco anigoo arkay inay baahiyo badan ay magaaladan u baahan tahay in wax laga qabto sida rahantiya baahiyo asaasiya oo aan ka adkeysan kara waayay haddii ilaahay ka dhigo oo aan doorashada ku soo baxo waxyaalaha ii qorshaysan ama noo qorshaysan aniga iyo rag kale asxaabnahay iyaguna musharaxiina oo aanu mataqaanay insha Allah tartanka ku wada jirno oo aanu rabno inaanu si jamac wax wada bedelno waxa kamid ah horta magaalada Burco waxa ku dhacay wax mataqaanay go'doon siyaasadeed ba ku dhacay waxay ka hadhay magaalooyinkii kale ee Geeska Afrika marka koowaad waxaan rabnaa inaanu ka saarno magaalada Burco go'doonka siyaasadeed insha Allah waxaanu rabnaa inaanu dhaqaalaheedii kor u qaadno waxyaalaha noo qorshaysan inaanu wax ka qabano waxa kamid ah xagga wadooyinka oo aanu rabno insha Allah inaanu Burco u sameeyno wadooyin waaweyn oo waasaca oo lagu sameeyay maintenance iyo dabagal lagu sameeyay oo insha Allah aan arki doonin hog dambe iyo maaragtay meel dambe biyo mareena aan arki doono insha Allah inaan sameeyno survey sameeyno oo aan wadooyinka magaalada banayno xaafada dhexdooda banayno imika magaalada dhan ee Burco inta leeyahay way xiran tahay wadooyinka gawaadhidu maraan aad bay u yar yihiin xaafada dhexdoodu way iska adag tahay in laba gaar isku dhaafaan inaan u sameyn doono habka qashin ururinta casriga ah di Allah ka dhigo oo aan magaalada keeni doono ilaa 200 oo track oo ah kuwa qashinka iyagu isu qaada ah iyo dumpsterska waxa la yiraahdo ee waaweyn ee qashka lagu ururiyo annagoo sameyn doona xaafad kasta oo sameyn doona zone ama meel qashinka lagu ururiyo waxaanu maartay hadii Ilaahay nala qabto aan ku dadaali doona Burco inay noqoto magaalo nadiif ah waxaan noo qorshaysan inaan ku sameeyno magaalada Burco dhexdeeda ama downtown-ka dustbins inaan ku sameeyno meel qashinka lagu guro sida adduunka kale waxaanu sameyn doona insha Allah in dadka haysta ku ganacsada magaalada dhexdeeda ee yar yar inaan u dhisi doono meelo gaar ah ay ku ganacsadaan si wadooyinka magaalada u furmaan xagga dhalinyarada iyo waxbarashada waxaan rabnaa inaan xaafadaha magaalada dhan u sameeyno public library ama goobaha akhriska ee dadweynaha xaafad kasta waxaan u ballan qaadaynaa inaan u sameeyno garoon dhalinyaradu ku ciyaaraan sidoo kale waxaan sameyn doonaa insha Allah meelo lagu nasto ama parks waxa la yiraahdo ama xadiiqadaha afcarabiga lagu yiraahdo ee galabtii kale lagu nasto insha Allah Burco waxaan ka dhigi doonaa magaalo cagaaran sidoo kale waxaan noo qorshaysan in aanu ku sameyn doono kale degmo kasta u sameyn doono ama xaafad kasta weyn u sameyn doono goob dabdamis oo heegana oo 24 saacadood si hadii uu dabdhaco xaafadaas uu markii ugu soo gurmado waxa kale oo noo qorshaysan hadii Allah ka dhigo in aanu sameyn doono magaalada ku sameyn doono kor qaadi doono caafimaadka guud ama public health waxa la yiraahdo xagga gaadiidka ama transportation-ka waxa noo qorshaysan inaanu sameeyno istaano gaar ay ka baxaan basasku qaar ay ka baxaan tagaasidu qaar ay ka baxaan tigo waxaan rabnaa Burco inay noqoto magaalo la tartanta magaalooyinka Geeska Afrika Burco waxaan kula talinayaa in ay doortaan dadka wax u qabanaya waxa weeyaan qof wax qabanaya ee wax ku qabanaya magaalada iyo gobolkaaga magaalada wax u qabanaya ayaa muhiim ah in aad doorato qofkii wax ku qabanaya wax ku ah kiyaan waxba ku qabanaya wax ku maaha waxaan idin bala qaadana inaan idin shaqeyn doono aanan idin ka shaqeysan doonin hadii Ilaahay ka dhigo anigu Mareykan baan ka yimi waxaan 16 sano Mareykan ku maqnaa haddaan shaqo rabo xaggasan ka shaqeysan lahaa sarnaantii iyo shaqada wax ka buuxda laakiin halkan sababta aanu iigu soo kaliftay inaan u ordo waxa weeye in wax ka bedel ku sameeyo magaalada Burco oo aan ku dhashay inta ku leegaaday wax ku bartay markaan arkay dhibaatooyinka badan ee hor yaala marka reer Burco waxaan leeyahay reer Burco ay wada artaan kulaheenii deegaanka ee maanta jiray waxa laga yaabaa inaan waxba hakranayna laakiin
waxa loo baahan yahay isbedel muuqda oo dhinac walba leh baa loo baahan yahay. Jaamac Salebaan Cumar, Bulsha TV, magaalada Burco.